السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي هبون وناكسن بانيلي إذا لهانتين كسو دوادا إسعرق ميديا برودكشن وعنيقو انجينير عبد الرحمن أحمد عليا ويديسو تبينيا برنامج كي حديقها كيس وحالي ايكو قبسانين هابي نيويوركي عاصمة هرقيسة كدب مركية عيدا مدى بوليس كذنبت قريدة سومالان أو هايلان إنان نديقين وحبان لقيت فنيد عما وحافلة نوعي دون طاعتي وهابي نيويوركي وخاصو مدحوينها جمهورية سومالان مدانا موسبية عبدي وقام بينان نديقين حفلة بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قدومي حديا جيسك محمد بكال. وحنا عوالك كعضينية. أنا جيك واحد حديا جيسك ورد مسترن. إن أنا جاء برنامج كي سنة كعصب قبلنا وقول جيه قبل شرني. وحق الله إن أنا قبلنا برنامج كسنة كيده هذا وكلا قيب قادنا تاجريش هذا وحكلياتين نكون هاي فنان. inaan ummadayda qancino iyo taageerayaasheeda in xukuumaddu ay naga joojiyay 12 habeenimo mid waxa weeyaan horta anagu muwaadiniin baan waddanka cid naga xigto waxa ayaan daraa in xukuumadda dhan ay ku mashquulsho afar oday iyo qabiiliye reero oo fanka ummadda Ilaahay u dhaliyay ee dhaqanka ay u leedahay ku mashquul weydo awoodeeda Ilaahay naga ma qaran qarankayga aan la xajaleysanaynaa xidigaha iyo xukuumaddu waa xukuumadeedii waa sax xidiguna waa astaan qaran sidaan anagu aaminsanahay in kooxdu waxa astaan qaran ku noqotay waxaanu ku caan noqonay ma heesaanu kali kunulanay waa heesaha wadaniyada ee looga bartay kooxda in hankaagu hadda Freer hebel kamid yahay heesta caalamku kamid yahay ee qabyaaladu kamid tahay ee taariikhdu kamid tahay ee wax kasta iyo wax walba ka dhaca dalka haday dhiirigelin tahay haday wacyigelin tahay haday wadaniyo tahay kooxda xidiga geesku waxay ku caan bixin waa heesaas waana la wada ogyahay marxaatimo doon anagoo tixgelinayna amarkii xukuumadda ayaa waxaan u baajinay inaan qabanno showga aan u qaban lahayn sida darteed waxaan ka door bidnay inay kooxdu qabato waraysiga looga bartay sanad lahayd maana dhigin show sida gudoomiyuhu sheegay waxaan uga baaqanay waa amarka xukuumaddu ay soo saartay inteedan baan ahayn xidigaha geeska oo cidi tarixin qolbaan hoosta ka soo xidhanay waxaan loo yimid niman ciidan oo askara waan u sheegnay inaan show ahayn waxaan qabanaynaa waraysi yahay nalaguma ixtiraamin waddankana xaq baan ku leenahay dhammaan qof meel ka yimid laguma jiro waxaan Soomaaliland dhamaantayo cid marti dalka ku ay kuma jirto xukuumaddu haddii ay doonayso inay wax saxdo dalka musuqmaasuq baa ka jira waxa ka qabato koow qabyaaladii kala qaybsanaanta waxa ka qabato laba sixir bararka waxa ka qabtaan saddex tacliinta waxa ka bartaan waxa ka qabtaan maxaan ku raadaa amalaanta wax ka qabtaan waxa jira bayraxyo badan oo ay waajib ku tahay qaranku inuu ku mashquulo oo qabto sidoo gudoomiyuhu sheegay sidii Soomaaliland qabiilada ay u raali geliso xukuumadda fanka u raali geliso aad aan u salaamayaa dhammaan taageerayaasha xidigahan meel kasta dunida joogan waan ka raali gelinaynaa waxyaabaha caqabad xumada ee kooxahana lagu la kacay mana ahayn wax qurux badan madax meel ka sareyso la taabtaa ma jirto mudane Muuse Bixi Cabdi waa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan madaxweynaha u faraynaa fariin mudane madaxweyne
xukuumaddeeda inaanu dhisno mooyaane weli naguma dhicin inaanu dumino marka waxaan madaxweynaha ka codsaynaa iyo xukuumadda arrinta fanka inay madaxweynuhu soo jeesto waanu dhaleecaynaa wixii ka hor yimaada xukuumadda ma jecelin annagaa difaacayna qarankeega laakiin qaranku aanu ka helno ixtiraamka iyo xurmadan u hayno iyo dadaalkan ugu jirno hadiya habeen aad baan idin